safaarada Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Pretoria ee dalkani Koonfur Afrika ayaa casuumad u sameysay xildhibaano ka socday dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda aan walaalaha nahay ee Djibouti waxa ayna soo indhaynayeen qaybaha kala duwan ee safaarada Soomaaliya ay ku leedahay wadankani Koonfur Afrika. intaasi kadib ayaa xildhibaanadu waxa ay kulan kula yeesheen gudaha safaarada qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankani Koonfur Afrika. waxaana goobta ku sugnaa wasiirka cadaaladda iyo xuquuqul insaanka dalka Djibouti Ali Xasan Bahdoon, safiirka Soomaaliya u fadhiya Koonfurta Suudaan Cabdiraxmaan Cami, labada xogaye ee aqalka sare iyo aqalka shacabka ee dawladda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. qaar ka mid ah madaxda jaaliyadda, ganacsatada, odayaasha dhaqanka ayaa ka mahadceliyay in xildhibaanada Djibouti ay maanta ku soo booqdaan safaarada Soomaaliya ee magaalada Pretoria. marti sharafta ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Dileita Maxamed Dileita, wasiirka cadaaladda Ali Xasan ku xiga mataqaanaa iyo marti sharafta ay hogaaminayaan in uga timid dalkeeni walaalaheen Djibouti. dhammaan wafdiga nooga yimid Djibouti iyo wafdiga nooga yimid Soomaaliya waxaan u maleynayaa markii ugu horeysay oo aan gathering intaan la ku sameeyay South Africa waa markii ugu horeysay ka dhacdo. waxaan ku mahadsan safiirkeena cusub markoobaad safaarada oo shirkan soo abaabushay aadan ugu mahad celinaynaa safiirka iyo tiimkiisa safaarada. waxaan soo dhaweynaynaa sidii horeba loo yiri wafdiga labada dawladood ka socda oo hogaaminayo ugu weyn yahay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Djibouti. safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Koonfur Afrika mudane Maxamed Sheekh Saxaaq ayaa mikrofoonka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Djibouti mudane Dileite Maxamed Dileite. hadalku ku dheereeyo waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan kugu soo dhaweeyo halkan ummadda Soomaaliyeed halkan fadhida oo wakiilka ka ah jaalidaha meesha ku nool inaad hal kalima tiraahdo kuleelka iyo anaga oo faleed fadlan mashkuuran. waxaan moodayay inaan shirshir bigeynayay Pretoria iyo safaarada waxaan moodayay inay tuso laakiin sidii xafladii surprise ay noqotay markaan in arkay wad mahadsantihiin walaalayaal odayaasha walaalayaal gabigiina wad mahadsantihiin sidii aniga iyo walaalihii xildhibaanada iyo wasiirkii noo soo dhaweyseen. marka la yiraahdo Soomaaliya iyo Djibouti waa isku mid baan nahay. safaaradda Djibouti marka la yimaado sidii safaaradda Soomaaliya baa la yimid. safaaradda Soomaaliya marka la yimaado innaga nimatalaya xaggan safaarad ma hayno safiirkii aan hayna waa Maxamed Sheekh Isaaq. marka meel kasta Europe ha noqoto Afrika ha noqoto Soomaali iyo Djibouti waa kala gabeeya. حسن كافي محمد شري warbaahinta qaranka safaarada Soomaaliya Pretoria.